mudane Zelenski ayaa arrintan ka hadlay kadib markii uu soo baxay warka sheegaya in kolonyo gaadiid militari ah ay u jahayseen dhinaca Donetsk. afhayeenka aqalka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa sheegay inuusan xaqiijin karin in ciidamada Ruushku gudaha u galeen goobaha ay ka taliyaan gooni ugoosadka Ruushka. wuxuu sheegay in Moscow ay diyaar u tahay diblomaasiyadda caalamka. madaxweyne Putin wuxuu sheegay Isniintii in militariga la daabuli doono. hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa sheegay in uu Ruushka ka xayirayo tubo gaaska qaada oo muhiim ah oo badda dhex marta, taas oo ah cawaaqibkii ka dhashay in Ruushku aqoonsado gobollada gooni ugoosadka ah ee Ukraine. wuxuu joojinayaa hanaankii lagu dhammaystiri lahaa ogolaanshaha dhismaha dhuumaha shidaalka. midowda Yurub waxaa kale oo uu ka shaqaynayaa qorshe kale oo lagu xanibayo danaha Ruushka ee dhammaan wadamada xubnaha ka ah midowga. dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa ballan qaaday inuu dhaqan gelin doono cunaqabatayn dhaqaale. We will immediately institute package of economic sanctions. waxaan durbaba diyaarinaynaa cunaqabatayno dhowr ah oo dhanka dhaqaalaha ah. arrintaasi oo aan filayo in dad badan ay sugayeen. cunaqabataynadaasi ma ahan oo keliya kuwa lagu beegsanaya Donbass, Luhansk iyo Donetsk, balse Ruushka lafahantiisa. waxaan si baaxad leh u bartilmaameedsan doonnaa danaha dhaqaale ee dalka Ruushka. xaqiiqdiina xayiraadahan ayaa waxay noqonayaan bilowga xayiraado dhowr ah oo ka dhan ah Ruushka oo dowladda UK ay ku soo rogayso dalkaasi. sababtoo ah waxaan filaynaa in Ruushka ay ka soo socdaan dhaqamo aan la qaadan karin marnaba. There is more Russian irrational behavior to come. hogaamiyaha Hong Kong Carrie Lam ayaa amray baaritaan qasab ah oo ku saabsan corona, kaas oo lagu sameynayo dhammaan dadka degan Hong Kong. madaxda Hong Kong ayaa isku dayaya inay joogteeyaan qorshe lagu dabar jarayo COVID-19. mudane Lam ayaa sheegay qof walba oo reer Hong Kong ah inuu maro 3 wareeg oo baaritaan ah, uuna ciqaab mudanayo qofkii hareer mara amarkaas. saraakiil ka socota dalweynaha Shiinaha ayaa la geeyey Hong Kong si ay gacan uga geystaan ka hortagga Omicron oo ah nooc cusub oo koronaha ah, kaas oo harqiyey isbitaalada, halka bukaanadana loo sheegayo inay iskarantiilaan. waa markii ugu horreysay ee maamulka Hong Kong tijaabo dhammaystiran ku sameynayo dadka, kaas oo ah qorshe aan weli ka hirgelin meel kale oo Shiinaha ah. Iiraan ayaa dib u celisay 800,000 oo tallaalka koronaha ah oo ay ugu deeqday Poland kadib markii ay ogaadeen in lagu soo farsameeyey Maraykanka. hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa ku dhawaaqay in tallaal kasta oo ka yimaada Maraykan iyo Ingiriis uu mamnuuc ka yahay Iiraan. wuxuu sheegay inaan la aamini karin tallaalkooda. 135,000 oo ruux ayaa Iiraan ugu dhimatay COVID-19, waa tiradii ugu sarreysay ee ku dhimata bariga dhexe. waxaa la ogaaday in ugu yaraan 16 qof oo shacab ah oo ku noolaa Sacuudiga ay ku dhaawacmeen duqayn kadib markii diyaarad aan duuliye lahayn ay bam ku dhufatay goob xaafad ah. isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudigu waxay sheegeen in diyaaradda ay lahaayeen fallaagada Xuutiyiinta ee ku sugan Yemen, ayna ku degtay meel 60 kiilomitir u jirta magaalada koonfurta xigta ee Jizaan. isbahaysigu waxay sheegeen in diyaaraddu doonaysay inay duqayso garoonka diyaaradaha. kooxda uu Sacuudigu hogaamiyo ayaa la diriraysay fallaagada Xuutiyiinta ilaa 2015. warkii dunida waa inaga intaas. aan dib inkugu celiya Cabdifitaax iyo qaybaha kale ee idaacadda. aad baad u mahadsan tahay. Saxnuun Axmed ayuu kaasi ahaa wararka caalamka. qodobadii ugu waaweynaa ayuu inala socodsiinaya. halkaad kala socotaana waa BBC. bal markana aynu ku bilownaya sida aad warka caalamkaba ku maqlayseen, madaxweynaha waddanka Ukraine ayaa waxa uu sheegay in ammaanka Yurub oo dhan uu halis ku jiro kadib markii Ruushku aqoonsaday madaxbannaanida 2 gobol oo sheegay inay iskooda uga go'aan waddankaasi. hadalkan ayaa waxa uu imanayaa xilli ay soo baxaysay cambaarayn caalami ah oo ku aadan go'aanka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku amray inay ciidamada dalkiisa ku galaan gobolada iskood uga go'ay Ukraine ee uu aqoonsaday bariga dalkaasi ku yaal. xogayaha arrimaha dibadda waddanka Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu tallaabada Mr Putin ku tilmaamay waa mid aqoonsiga madaxbannaanida ee gobolada Donetsk iyo Luhansk waxa ku tilmaamay mid ceeb ah oo la sii saadaalin karayba, halka midowda Yurub uu ballan qaaday in uu qaadi doono tallaabo kasta oo lagu xaqiijinayo midnimada iyo wadajirka waddanka Ukraine. wararka BBC da umurtaasi ka qortay waxa isku soo duway oo nala socodsiinaya Maxamed Shiil Xasan.
muuqaallo xalay laga sii daayey telefishinka ayaa muujinayey gaadiid dagaal oo ruushku leeyahay oo ku sii jeeda xuduudda yukrain. ruushka ayaa sheegay in ciidankaasi ay noqon karaan waxa ay ugu yeereen nabad ilaaliyaal ku sii jeeda jamhuuriyadda go'day ay ruushku muddada taageerayeen. laakiin afhayeen u hadlay aqalka kremlinka ayaa u sheegay wariyaasha inuusan awood u lahayn inuu xaqiijiyo in ciidamadaas ruushku ay galeen goobaha ay gacanta ku hayaan kooxaha gooni ugoosadka. wuxuu sheegay in moscow ay u furan tahay diblomaasiyadda. madaxweyne putin waxa uu shaaca ka qaaday in halkaas ciidamo la geyn doono, laakiin maraykanka ayaa sheegay in ciidanka loogu yeero nabad ilaaliyaal ay tahay wax aan macno lahayn. maraykanka ayaa ku eedeeyey ruushka in ay marmarsiyo u samaynayaan dagaal. madaxweynaha yukrain ayaa sheegay in dilkiisa uusan cidno ka baqin sida uu yidhi. hadalka uu telefishinka ka jeediyey xilli dambe oo xalay ah ayuu zelenski ugu yeeray dowladaha ay saaxiibka yihiin in ay tallaabo wax ku oola ka qaadaan taageerista dowladdiisa. waa arrin muhiim ah inaan aragno sida saaxiibadeenna ay yihiin iyo cidda weli doonaysa in ay nacbaysato waxa ay ruushku wadaan, ayuu yidhi. dalal fara badan oo ay ku jiraan ingiriiska iyo kuwo kale ayaa lagu wadaa inay soo saaraan cunqabateyn looga horjeedo ruushka, taas oo looga jawaabayo tallaabada uu qaaday. waxaa jirta cabsi ku saabsan in faragelin ay dhici karto in ruushku ayna ku sameeyaan xuduudda yukrain sida ay sheegeen qiyaaso ay bixiyeen maraykanka. hogaamiyaha yukrain ayaa sheegay in aqoonsiga ruushka ee madax bannaanida gobollada goonida u go'ay ee bariga yukrain ay tahay culays ku wajahan yurub oo dhan. shir jaraa'id oo ka dhacay magaalada kiyef ayaa lagu sheegay in ammaanka yurub go'aan laga gaaray, wuxuuna xaqiijiyey in gaadiid dagaal oo ruushku leeyahay la geeyey donetisk. ingiriiska iyo dalal badan oo reer galbeeda ayaa ku hanjabay cunaqabatayn ay ku qaadaan ruushka. ra-iisul wasaaraha ingiriiska ayaa sheegay in aanay ka labalabayn doonin tallaabo culus oo ay ka qaadaan ruushka. All the evidence is that President Putin is indeed bent on a full-scale invasion. caddaymaha dhan waxa ay muujinayaan in madaxweyne putin ay ka go'an tahay in dagaal ballaaran uu ku qaado yukrain. waa inaan arrintu kala caddaynaa. waxaanay la tahay duulaanka noocaasi ah waxa uu noqon doonaa mid masiibo ah. dabcan waxaa jiraya cadaadis ah in wada hadal la galo, in la wada xaajoodo. taasina waa mid saxa. hase yeeshee haddii valadimir putin uu sii wado dhaqankiisa ku salaysan rabshadaha iyo gulufka colaadeed iyo in uu gebi ahaanba duulaan ballaaran ku qaado dalka yukrain, inuu hareereeyo magaalada kiyef, taasoo u muuqato waxa uu doonayo inuu sameeyo. dabcan waa muhiim in tallaabooyinka noocaasi ay ka dhashaan cawaaqibkaas oo ah inaad qabsatid waddan kale oo reer yurub ah, ma ahan inuu midho dhalo. marka waxaa khasab ah in valadimir putin uu taasi ku guuldarraysto. Conquest of another European country should not succeed and that Putin should fail. isagoo ka hadlayey moscow ayuu putin diiday waxyaabaha loo soo jeediyey, wuxuuna sheegay in waxa ugu dambeeyey ujeedadiisa ay tahay in la soo celiyo boqortooyadii ruushka. waxaan rabaa inaan si toosa u sheego, horey ayaan u sii saadaalinay hadallada xanta ah ee ah in ruushku uu qorshaynayo in xukunkiisii uu ku soo celiyo waddamada isaga xuduudda la leh. arrintani waa mid been ah. kadib burburkii midowgii sofiyeet, ruushku waxa uu aqoonsaday dhammaan waddamadii ka soo baxay gobolka. sidaad og tihiinna, ruushku waxa uu si xooggan uga shaqaynayey sidii uu xiriir ula yeelan lahaa dhammaan waddamadaasi soo baxay. waadna og tihiin in waddamo madax bannaan ay soo baxeen wixii ka dambeeyey burburkii midowgii sofiyeet. ra-iisul wasaaraha jarmalka ayaa sheegay in uu xayiri doono dhuumaha gaaska ee boltiga, taas oo ka dambaysay markii ruushku bariga yukrain u aqoonsadeen dowlad go'day. tani waxay hor istaagaysaa horumarkii loo baahnaa in lagu sii dhammaystiro dhuumaha oo si caadi ah loo ogol yahay. qiimaha shidaalka ayaa kor u kacay iyadoo laga cabsi qabo in xiisaddani ay ku faafto caalamka oo dhan. maxamed shiil xasan aad buu mahadsan warbixintaas ayuu nala socodsiinaya. haddaba muxuu ruushku uga gol leeyahay tallaabada uu ku aqoonsaday madax bannaanida gobolka ka tirsan, waa labada gobol ee ka tirsan waddanka yukrain, balse iskood ugu dhawaaqay inay dalkaasi isaga go'een? su-aashaasi kuwo kale ayaynu weydiinay dr axmed faarax iile axmed zaki oo culumta xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacad ku taala waddanka bakistan. khadka taleefonka ayuu ugu warramay waryaha b b c da kawtar maxamed cabdulahi. putin khudbaddii dheereed ee uu akhriyey markii uu la hadlayey dadweynaha ruushka wuxuu ku sababeeyey laba arrimood oo uu yidhi weligeedba yukrain ma aanay noqon qaran dhab ah, oo qodobka koowaad ah, iyo qodobka labaad oo uu ku sababeeyey in ay dowladda kayf fadhida
ee Ukraine ay ku guuldareysatay inay siiso adeegyadii dowladnimadu siinaysay dadka Ukrainiyiinta oo ay dowladdu tahay mid corruption badan oo aan xataa siin karin biyo iyo dhaqaale iyo shaqo abuur ku filan dadka Ukrainiyiinta. arrinta uu madaxweynaha Ruushku sheegay dad badan oo reer Ukraine ayaa la qaba oo u badan gobolada bariga ah ee qaarkood hadda ay ku dhawaaqeen madax banaanida madaxweynaha Ruushka ee Vladimir Putin uu aqoonsaday. marka maxay tahay ujeedada uu Ruushka ka leeyahay talaabadan uu dalalka ugu aqoonsaday labada gobol? horta muhiimaddu waxa weeyaan in la kala jabiyo awood kasta oo ka hor iman karta oo Ukraine ciidamadeeda kamid ah haddii ay damcaan ciidamada Ruushku inay galaan awood kasta oo ka hor iman karta in la daciifiyo oo la sii yareeyo si ciidamada Ruushka ay ugu sahlanaato in Ukraine qabsado. waa qodobka koowaad. qodobka labaad ee ka dambeeya waxa weeye in uu beesha caalamka iyo wadamada dunida uu ku qanciyo in aanay Ukraine ahayn dowlad legitimate ah oo maamuli karta dhulkeeda iyo dadkeeda maadaama ay gobollo kasoo dhex baxeen madax banaani raba kuwaasoo xidhiidh toos la sameyn doona Russia soona dhaweyn doona ciidamada Ruushku inay soo galaan dhulkooda maadaama uu aqoonsaday dowlad madax banaan. in badan waxaa laga hadlayay in Ruushka uu duulaan ku yahay Ukraine. hadda go'aankan cusub waji noocee ah ayuu u yeelayaa xiisadda? tani wuxuu bay cadeynaysaa rabitaankii Ruushka ee ahaa inuu Ukraine qabsado inaanu weli ka tanaasulin isla markaana ballamihii uu istabajoog ahaa ee Ruushku qaadayay inaanu Ukraine faragelin ku haynin ama aanu qabsanaynin Ukraine inay iska ahaydun ballamo been oo afka baarkiisa laakiin ficiladiisa iyo aanay islahayn qowlkii uu sheegay adduunyada. falcelin noocee ah ayaa laga filan karaa dalalka galbeedka ee xulafada la ah Ukraine? horta wadamada reer galbeedka marka laba loo qaybiyo qayb waa kuwan Yurubta oo kuleylka ciidamada Russia ay durba saameyn ku leedahay midna waa dawladda adduunka ugu awoodda badan leh oo Mareykanka ah. marka ficil celintooda kulli wuu kala duwanaan doonaa. dawladda Mareykanka oo qura ayaa laga yaabaa inay cunaqabateyno saameyn leh ay saarto dawladda Ruushka taasoo sii kicin karta cadhada haddiise ay isku dayaan inay uga jawaabaan taageero military oo ay siiyaan dawladda Ukraine oo ciidamada NATO ay arrinta soo farageliso inay arrintu intaa ka sii xumaato ama ay ka sii fool xumaato ayaa laga yaabaa. taasina ma muuqato maadaama aanay midowga Yurub iyo wadamada reer galbeedku aanay ilaa iyo hadda ka midaysnayn arrinta Ukraine. midda kale waxaa suuragal ah in cunaqabateynta ka sokow in ciidamada Ukraine la hubeeyo oo hub casri ah hadda ay siiyaan sida iminka dowladda Ingiriiskuba ay tallaabadii u horeysay qaaday usbuucii la soo dhaafay. marka si guud xaaladda halkee ku dambeyn doontaa bay kula tahay? haddii ay ku wadaan arrintaasi waxaa laga yaabaa inuu dagaalku daba dheeraado oo ay ciidamada Ruushku ay ku adkaato inuu Ukraine ka awood bato. haddiise ay taasi dhici weydo waxay u badan tahay in Ukraine dagaal sokeeya ay gali doonto ciidamada Ruushiyana ay xoog ku qabsan doonaan. arrintaasina markii koobaad ay dhacday maaha gobolka Crimea ay sidaa ku qaateen oo marka horeba Ukraine ka tirsanaa haddana laba gobol oo ka tirsan bay sidaa ku qaadan doonaan. waxaa la ogaan doonaa kulli radda ficilka ugu badan inuu kasoo laabto ciidamada Ukrainiyiinta hadda ku sugan labadan gobol ee la aqoonsaday. kaasi waxa uu ahaa Dr. Axmed Faarax Iidil Axmed Zaki oo khadka taleefanka ugu warramay wariyaha BBC-da Kawthar Maxamed Cabdullaahi. dhanka kale colaadda ka taagan waddanka Ukraine waxa ay durbadiiba saamaysay sicirka shidaalka caalamka iyadoo fuusadii shidaalka ahayd ay gaartay halkii ugu sarreysay muddo 7 sannadood. haddaba maxaa isku xiray qiimaha shidaalka iyo colaadda halkaas ka taagan? waxaa arrintaas inoo faaqidaya Warsame Maxamuud Axmed agaasimaha cilmi baarista iyo adeegga bulshada ee jaamacadda Hargeysa. khadka taleefanka ayaan goorweyd kula xiriiray waxaan marka hore weydiiyey waxaa xiisadda Ukraine ay u saamaysay qiimaha shidaalka. marka hore qiimaha shidaalka had iyo jeer marka uu kaco laba arrimood ayaa saameeya markaynu weliba xaaladan oo kale eegayno. mid waxa weeyaan aasaaska qiimaha suuqa ee ay keento dalabka dadka ee shidaalka iyo wax soo saarka shidaalka kaasoo afka qalaadna lagu yidhahdo market fundamental. ka kale shidaalka waxaa kor u qaadi kara qiimihiisa colaadaha sida maanta ka taagan dalka Ruushka iyo Ukraine. sare u kaca haatan ku yimid qiimaha shidaalka ma Yurub buu ku egyahay mise caalamka intiisa kalena uu gaaraya? qiimaha shidaalka marka la eego had iyo jeer iibka shidaalku uu ka duwan yahay iibka badeecada kale oo waxa shidaalka lagu kala iibsadaa waxa loo yaqaanay futureska oo ah in mustaqbalka la kala iibsado shidaalka. markasta oo baqdin colaadeed ay timaadana waxa la bilaabayaa in ganacsatadu ay shidaalka iibsadaan waqtiga soo socda 3 bilood 6 bilood iyo sanadba wixii saas oo kale ah. taasi markaa waxay keenaysaa shidaalku
inuuna ku ekaanin uun meeshaa dhibtu ka taagan tahay ee uu gaadho suuqa shidaalka ee caalamka. inkasta oo shidaalka ruushka uu badankiisu taga yurub oo yurub ay gaadhayso shidaalka uu u dhoofiyo dalka ruushku 60%. saamayn intee leeg ayaa ka dhalan karta marka qiimaha la kala siisto shidaalka ee haatan sare u kacay? saamayntii shidaalka ee colaadu ay sababtay iminkaba waynu arkaynaa oo maanta wuxuu marayaa shidaalka noociisa heerka qiimaha laga qaato ee loo yaqaano brandku $7.90. qiimaha oo markii ugu dambeysay ee uu gaadho ay ahayd 7 sano ka hor. laakiin waa inaynu iyaduna ogaanaa in ayna qiimahan iminka kor u kacay ayna keli sababin colaada ka taagan ruushka iyo Ukraine ee ay tahay qiime in muddo ah kor u soo socday, kaas oo ay sababtay qiimo dhaca shidaalka ku yimid sanado ka hor, kaas oo aad u saameeyay maalgashiga dhinaca shidaalka oo aad u yaraaday. kaas iyo colaadan ka taagan ruushka iyo Ukraine oo isbiirsaday ayaa maanta keenaya in shidaalka adduunku uu kor u kaco qiimihiisu. waxaad sheegtay in mar kasta oo colaad ay dhacdo shidaalkana qiimihiisu inuu kaco, marka maxay tahay xiriir ka dhexeeya colaadda iyo shidaalka? xiriirka ka dhexeeya colaadda iyo shidaalka waxaynu u kala qaadi karnaa tan xaggan taagan laba mid waxa weeyaan colaaddu xagga ay ka dhacday oo ah dalka ruushka iyo Ukraine. dalka ruushku waxa weeyaan dalka labaad ee shidaal adduunka u dhoofiya oo uu dhoofiyo in ka badan 15% shidaalka dunida. dhinaca kale badeecada adduunka ayuu wuxuu u dhoofiyaa in ka badan 10%. marka waxa weeyaan ruushku saamayn ballaadhan ayuu ku leeyahay oo laba mid aha dagaalo kale oo meel kale ka dhacay. waxaa jirta in suuqa kala iibsiga ee shidaalku uu yahay mid waqtiga soo socda la kala iibsado, kaas oo mar kasta oo ay cabsi timaado ay dadku bilaabayaan 3 bilood 6 bilood iyo sanadka soo socda in la sii iibsado. marka haddii ay xitaa colaadaasi si degdeg u xallisanto waxaa sii joogaya oo sii soconaya qiimihii qaaliga ahaa maadaama la sii kala iibsaday shidaalka waqti hore. maraykanka wuxuu ku goodinayaa in cunaqabatayn uu kusoo rogi doono ruushkana sidaa haatan sharaxaysid wuxuu ka mid yahay dalalka ugu horreeya ee shidaalka soo saara ee dhoofiya. haddii marka ruushka shidaalkiisaas cunaqabataynta ay saamayso, taa maxaa ka dhalan kara? maraykanku run ahaantii aad ayuu uga cagajiidayaa in uu ruushka saaro cunaqabatayn. saamaynta u ballaadhanna waxay dhakada ka fuuli doontaa dalalka Yurub, kuwaas oo shidaalka u badan soo dhoofsista. marka kalena waxay ayadna saamayn doontaa suuqa shidaalka ee dunida. laakiin taasi waxaa kale samayn doontaa wadahadallada dalka Iiraan iyo reer galbeedka ee iminka socda ayaa waxaa la filayaa in dagaalkan uu saamayn ku yeesho, oo haddii cunaqabatayn la saaro dalka ruushka si ay kaalintiisii u buuxin karto Iiraan, waxay taasi soo dedejin kartaa heshiis dhex mara dalalka reer galbeedka ah iyo dalka Iiraan. waa tahay kaasi waxa uu ahaa warsame maxamuud axmed oo ah agaasimaha cilmibaarista iyo adeegyada bulshada ee jaamacadda Hargeysa oo khadka taleefanka igu warramay. b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. markana allah u naxariistee waxaa magaalada Kismaayo lagu dilay Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo ah sheekh si weyn looga yaqaan Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland. sheekha iyo culimo kale oo la socotay ayaa waxaa la sheegay in weerarka uu ka soo gaaray qarax lagula eegtay gudaha magaalada Kismaayo, halkaas oo sheekha la sheegay inuu u tagay duruus diini ah oo uu siinayay arday halkaasi diinta ku barata. ilaa hadda ma jirto cid sheegatay weerarkaasi, iyadoo sidoo kalena ay dhaawacmeen dhowr qof oo kale oo sheekha la socotay. haddaba sheekh maxamuud xaaji yuusuf oo ku sugan magaalada Garowe ayaa ka mid ah culimmadii aadka isu yaqaaneen isuguna dhowaayeen Sheekh Cabdinaasir. waxuu iga warramay sida uu kusoo gaaray dilka sheekha iyo waxa laga garanayaba. bismillahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, salaatu wasalaamu calaa muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun. shiikha ugu horreyn ilaahay waxaanu weydiinaynaa ilahay inuu naxariisto. walaal dee shiikha maanta duhurkii markii la tukaday wax yar kadib waxaan maqalay magaalada Kismaayo in lagu qarxiyey isaga iyo 3 kale oo dhalinyaro ah bay ahaayeen oo la socday culimo ah. isaguna waa dhintay, ninkan inuu dhaawac yahay baa naloo sheegay. saas baan maqlay shiikhu inuu dhintay. ma garat markii aad maqashay in shiikha la qarxiyey oo uu dhintay, dabcan Kismaayo la xiriirtay wax xog oo ku saabsan qaraxaas sheekha lagu beegsaday?
maya wax xog haba yaraatee layma sheegin mar dambana waa la xiriiray wax xog ah dee nimankii uun dadka layn jiray oo culimada layn jiray hadda ka horna culimada laayay soomaaliya oo dhan ma laynaya ayaan bay nala tahay inay dileen wax kaloo xoga ma hayno ma garat maamulka magaalada Kismaayo haddaad la xiriirtay ma weydiisay inay xataa qof u soo qabteen maamul lama xiriirin laakiin kolleyba dee waajibaadkooday ka mid tahay maxaa yeelay shiikha waxaa lagu dilay magaalada Kismaayo laakiin lama xiriirin maamul anigu raggii culimada ah ka agdhawaa un baan la hadlay iyaguna intaa un bay ii sheegeen ma garat maxaad is leedahay shiikha wuu sababsaday shiikhu wuxuu sababsaday oo keliya horta shiikhu waa dee soomaaliya o dhan shiikheedii buu ahaa ilaahay ha u naxariisto xaruntiisuna laascaanood bay ahayd laakiin meel kastoo soomaaliya ka mid ah dacwada iyo diinta ayuu ka waday Kismaayona wuxuu u tegey arday shareecada islaamka la barayo oo halkaa degan inuu kutubo u soo akhriyo oo duruus diiniya uu soo siiyo muddo bil ah ayuu u tegey wuxuu sababsaday oo keli ah waa diintii uu fidinayay iyo dadku xaqa u sheegayay iyo dadka diinta uu barayay intaa unbuu sababsaday oo lagula colloobay ma garad sidii dadka hore khayrka qabeeba ambiyadii iyo saalixiintiiba loola colloobi jiray maadaama shiikha u tagay magaaladaas in uu duruusta diiniga arday halkaas ku sugan uu soo baro haatanna uu dhinta Allah u naxariistee duruustii uu waday halkaa ma kasii socon doonaan duruusta way socon doonaan awalba meesha shiikhu soo Kismaayo ma deganayn oo deegaankiisu laascaanood iyo xamar buu ahaa duruustii way soconayaan dee cid kaloo wada la waayi maayo diinta ilaahayna sideeda cid ma weydaho nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ka geeriyooday xoog iyo firitaan ayaana u ziyaaday marka wixii diinihii cid waayi mayso dee ilahay waa soconaysaa ma garat waa tahay marka sheekh cabdinaasir nin caynkee ayuu ahaa shiikhu ilaahay u naxariisto taqriiban 58 waqti ah ilaa 57 ayaa shiikhu horta wuxuu ku dhashay magaalada Buuhoodle baadiye u dhow dabadeedna wuxuu u wareegay Burco halka ayuu waxbarashadiisa hoose iyo waxbarashada ilaa dugsi sare uu ku qaatay intaas kadibna wuxuu ka mid ahaa saraakiishii dhowr iyo 70 dagaalkii sanadkan intaanu dhicin dagaalkii sanadkan wuxuu ka qayb galay shiikhu isagoo sargaal ah shiikhna ah ilaa 60 iyo dhowrkii isla markiiba wuxuu ka mid ahaa dadkii saxaabada islaamka ku soo biiray oo diinta barashada dhinac ayuu ka waday isagoo shiikha ayuu saraakiishii dagaalka ku jiray ka mid ahaa dagaalka hadduu dhammaadayna dabadeed diintiisii buu usoo laaftay iyo waxbarashadii diinta iyo culimonimadii ilaa waqtigaas ilaa iyo maantana diinta firitaankeeda iyo dadka inuu baro ayay shaqadiisu ahayd sidaas ayuuna shiikhi Soomaaliyeed ku ahaa ma garad maxaa lagu xasuusan doonaa waxaa lagu xasuusan doonaa midda uu u dhintay oo ah inuu ahaa shakhsi u go'ay ilaahay diintiisa inuu u shaqeeyo subxaanahu wa tacaala inuu ahaa shakhsi mowqifkiisa uu cad yahay oo nimankan dadka hadda laynaya oo munxarifiinta ah ayuu ummadda u caddayn jiray nimankaasi caqiida ahaan iyo camal ahaanba inay yihiin niman qalloocday oo diintii ka qalloocday oo shareecadii islaamka aan waxba kaga sugnayn mowqifkiisu waa caddaa dhinaca kale waxaa lagu xasuusanayaa wuxuu ahaa shakhsi midnimada Soomaaliya ee u taagan oo meel kastoo la joogo midnimada Soomaaliya ee ka hadla oo aan qarsan ayuu ahaa meel kastoo la isugu yimaadana maamulada wuxuu ku canaanan jiray ilaahay inay ka baqaan ummadii Soomaaliyeedna maslaxadeeda in laga shaqeeyo dadkiina la isku soo celiyo sheekh maxamuudow sheekh cabdinaasir saaxiibaad ahaydeen muddo dheer baad istaqaaneen haatan uu dhintay idinku maxaad samayn doontaan dacwada iyo diintii uu waday ayaan meeshii ka sii wadaynaa dadkii wax la barayana waa la sii wadayaayo waxba ka dhimin mayaan haddii lahay hadda ka hor sheekh cabdiraxmaan la dilay dr axmed xaaji cabdiraan baa la dilay diintana arrintaas waxuma dhimin filitaan bay kasii qaaday dadku inay fahmaan nimankan xaqiiqadooda iyo inaysan diin hayna diin la dagaalan inay yihiin ayaa la fahmay xaqii uu waday ayaan meeshii kasii wadaynaa haddii lahay idmo annaga iyo ciddii naga damaysaba kulliga iyo geeri baan ku xukumannahay laakiin inta la nool yahay waa in xaqa iyo diinta dadka loo caddeeya mawaaqifta sharciga ana oo ilaahay iyo rasuulkiisu ay raalli ka yihiin dadka in loo sheego shaqada iyadu intaa weeye ma garan kaasi waxa waa sheekh maxamuud xaaji yuusuf oo isagoo ku sugan magaalada Garowe khadka taleefanka ugu waramay markana xaalad biyo la'aan iyo intiiri baahsan ayaa laga soo sheegayaa degmada Xudur ee gobolka Bokool biyeerida ayaa la sheegayaa inay ka dhalatay ceelashii oo guray sabab la xiriira abaarta halkaasi ka taagan degmada Xudur oo markii horeba ay ku jirtay go'doon dheer weliba ayaa haatan waxaa ku soo barakacay dad reer miya iyo reer beed iyo kuwo kale oo reer beeraley ah abaarta jirta awadeed halkaasna soo miciin baday biyo la'aanta ayaa waxaa la sheegaya xitaa inay saamaysay masaajidda magaalada halkaas oo weysadii adkaatay waxaana aad sare ugu kacay qiimaha la kala siisto foostada biyaha oo dadka danyarta ah aanay awoodinba inay iibsadaan haddaba sheekh cali ibraahim maxamed wuxuu ka mid yahay dadka ku nool magaaladaasi Xudur waxaana uu imaam ka yahay masjid ku yaal magaaladaas khadka taleefanka ayuu igu waramay waxaana weydiiyey sida uu xal yahay
leedahay xaalada magaalada aad iyo dhibaato ugu jirta biyo la-aan iyo raashin la-aan ayaa ka jira oosana gaarima soo galin waxaa lagu nooleeyay wax moose dhabarka ay ku keentay oo iyo waa naaga dhabarka ku keenan raashinka ayaa lagu noolay haddii waxaaba ugu darantay biyo la-aan ayaa ugu darantay marka magaalo degmadan waa marka kusoo kacay nimankan raasijeeda degmadaas iyo degmadii xubdhuura iyo barakacyaashooda ayaa kusoo ziyaadin sidoo hortaaba dhibaato ka jirtin hadna dhibaatadii hore usii ziyaadin hadda waxaa ugu daran biyo la-aan iyo raashin la-aan intaasaa kulantay weli biyo la-aantii waxaabaa saamoysay masaajidihiyaa saamoysay goorma ugu dambeysay oo aad roob hesheen roob geedka hadda wax yaraa leedahay roob duhiina roob waa yaraay geedna waa yaraay roob magaalada ceelal biyaha laga cabo ma lahan miya ceelal biyaha laga waa lahaayeen laakiin dadkaa ku bad marka labadaas degmo oo zaa'id iyo barakacyaa maalinkaas imaada ayaa jira maadaama dadkii ku badsan ceelihii waa go-aan biyo baa laga lacan yahay ceelashii hadday gureen xaggeed biyo ka heshaan barnaamaha laga keena biyaha oo ceelo barnaamaha meel ka baxsan oo laga absana wili shabaab laga absanaay biyo laga keena gaariyaha laga keena magaalada dhexdeedna ceelo ma jira banaanka biyaha oo laga dhaansada oo motoora ayaa jira motoorkaas ma jira kuwa ceelihii kale oo caadiga ahayay lagu noolay biyuhu waa gureen marka biyo-la-aanta ka jirta haddaad leedahay biyaha waxaa laga keenaa meel ka baxsan magaalada oo booyada lagu keenaa fuustada biyaha meeqaad ku iibsataan fuustada kuwa banaanka laga keena waxaa laga iibiyaa $4 kuwa magaalada dhexdooda oo banaanka eena $2 markii horena meeqaad ku iibsan jirteen markii hore waxaa lagu iibsan jiray $1 iyo $0.5 waxaasaa lagu iibsan jiray qiimahaas aadka sare ugu kacay dadka magaalada ma awoodaan inay ku iibsadaan biyaha iyo dhibaato ugu tahay marka deed waxaaba laga yaaban yahay haddii maarka la gaaro ayaalkaysan yihiin ani oonba loo lamaado laga yaaban yahay biyaha ka sokow dhanka raashinka ka waran raashinka ma waa mootiyaal oo shabaab laga luminayo ayaa lagu keenaa qaarna naagi dhabarkooda ku keenaa dadka caadiga ee magaalada ku nool iyo dadkan aad leedahay soo barakaceen oo abaarihii baa saameeyey iyaga noloshooda sidee arrintaa u saamaysa noloshooda aada u liidataa dadkii xoolihian kasoo dhammaaday xoolihii waxaan midgooyan haddii dekaan waxba midgooyan xoolihii raashinaa u baahan yihin iloogada dadkii raashinaa u baahan yahay dhibaato aad u bacna ayaa ku jirtaa meesha wax gargaara oo idin soo gaaray ilaa hadda may ilaa hadda wax yaro heedaa oo kaara koraayan oo baahada dabeerayn mooyinbay wax baahada goolay oo meeshan la keenay oo gurmida ma jira sidee dadka magaalada ku nool yihiin marka dad magaalada dhibaatada ayaa ka nool yihiin marka hadii qofkaba hadii bulsha awoodkadiisu aan hayna dhaankaas noo yimaado waxyaa awoodee lahaay mala ilaahay aan gargaarikooda laakiin muslimiinta oo barnaame aan ku shaqeeyanaya saar u waraan dadka waraabka wadhijoojina saabkaasa ku nool yihiin shacaliya waxaad sheegtay in dhibaatada biyiyarada ee magaalada ka jirta ay saamaystay masaajidda adiga masjid baad imaam ka tahay sidee u saamaysay masjidkaaga masjidka hadda waxaa lagu weyjeystaa biyo oo naaga dhabarkooda ku keenan oo jiidgaama ayaa lagu weyjeystaa ceelkii waa guri markadeed oo khayrdoona qoska daqaasnaayo ayaa dhabarkooda biyo ku keenan biyaasaa lagu weyjeystaa arrintan oo kale adiga hore mau aragtay marka weligay maarkin 37 sano ayaa imaamka ahay biyo la-aan cunta dhan weligay kuma arkin haddii eelashaa soo jiraan eelkaa la socda xaafada usoo dhaasma jira haatan hadduu sidan xaal sii ahaado maxaad samaynaysaa ونلزمنا إلهي توقع معه وكاو نلزم الله إلهي توجه زمان نبالي تبعثوا دي راها سووا زنبل سوكسدي إله البريا إله لو توبشانا إله نبيك والأرن waa tahay kaas waxa waa sheekh cali ibraahim maxamed oo khadka telefonka ee xudur igu warramaya halkaad kala socotaan warbixinaas oo b b c haatanna saacaddu waxa ay sii dhaafaysaaba 5:30 daqiiqadood waqtiga bariga afrika xilligan oo kale waxaanu idiin soo gudbinaa qodobada wararka caalamka ugu door karan waxaa la diyaara saxnuun axmed midda kale oo hiigsigaygu yahay waxaanu shaqadan soo bartay waaye sidaa u jeedan kushinka anaa ku jira waxaa laga yaabaa inaan anigu shaqaalaha nadaafadda uga horeeyo waxaa laga yaabaa inaan waraabiska dhulka iyo rushaynta anuu qabto waa nin dibadda ka soo laabtay oo shaqo ka abuuray magaalada gaalkacyo kadibna shaqadiina kaga horeeya dadkii uu shaqada u abuurayba warbixintaasi oo faahfaahsan qaybaha dambe ayaad ku maqli doontaan balse markan aynu ku bilownay qaybtan ururka taalibaan ayaa sheegay inuu sameynayo ciidamo militari ah oo dalkaas uu yeesho oo ay ku jiraan askartii iyo saraakiishii hore ugu soo shaqaysay dowladdii ay iyaga ka horreysay ee awoodda kala wareegeen afghanistan
sarkaal sare oo militari oo ka tirsan dalkaasi afghanistan korna kala socon jiray dhismaha militariga dalkaasi ayaa sheegay in tallaabadaasi ay qayb ka tahay cafiskii loo fidiyey dhammaan dadkii lala xiriirinayay maamulkii hore. militariga afghanistan ayaa kala tegey kadib markii ururka taalibaan ay bishii agoosto ee sanadkii hore ay la wareegeen awoodda dalkaasi. faahfaahinta warkana waxaa inoo haya oo haatan stuudiga ugala soo biiray xasan cali geele. xasan. cabdifataax, taalibaanku waxay sheegeen in tallaabadani ay qaadanayaan ay tahay mid ay ku dhisayaan ciidamo xoogan oo dalkaasi afghanistan uu yeesho. ujeeddadu waxay yidhaahdeen marka laga soo tago in la dhiso ciidamo awood u leh in dalkaasi ay difaacaan, inay tahay in ciidamadii hore ee la shaqaynayay maamulkii maraykanka uu barataarayay iyagana lagu beeriyo ciidamada oo aan si gooni ah loo beegsanin. latiifullah xakiimi oo ka tirsan hogaanka taalibaan islamarkaana ka shaqaynaya arrimaha kala shaandhaynta ciidamada iyo dhismaha ciidamadaasi ayaa waxa uu sheegay shir jiraad uu ku qabtay magaalada Kaabul in ciidamadani ay noqon doonaan kuwa daboolo baahida dalkaas Afghanistan, dalkaasina uu awoodo in mushaaraadkooda iyo noloshooda uu bixiyo oo ah ciidamo aad loogu baahan yahay sida uu sheegay. latiifullah waxa uu sidoo kale ka hadlay hub aad u tiro badan oo taalibaanku ay ka heleen ciidamadii maraykanka markii ay ka baxeen dalkaas Afghanistan garoonka iyo meelo kale. waxa uu sheegay in qiyaastii sida uu isaga sheegay 300,000 oo kun oo hubka fudfudud ah ay gacanta ku dhageen, sidoo kale 26,000 oo hubka culus ay heleen. laakiin waxa uu sheegay oo ugu muhiimsanaya waxay ahayd in diyaarado aad u tiro badan oo 81 gaarayo oo sida uu sheegay maraykanku markuu dalkaasi ka baxayay uu burburiyey si taalibaanku aysan u isticmaalin, in haatan ay dib u habeeyeen oo diyaaradahaasi ay yihiin kuwa haatan duuli karayo oo la isticmaali karayo, weliba waa diyaarado military. marka waxa uu leeyahay ciidamadaasi awood ay yeelan doonaan. intuu sheegayna ciidamada intii kala shaandhaynta uu waday sidoo hadalku dhigay 4,500 ayay ka saareen maamul ahaan oo ah dadka aan loo baahnayn ama ciidamada aan loo baahnayn. laakiin faahfaahin kama uusan bixinin ciidamadaasi 4,500 gaaraya aan loo baahnayn waxa ay yihiin. waa tahay xasanoo hore taalibaan waxaa lagu eedeeyey in ay beegsanayeen ciidamadii hore ee dowladda Afghanistan, haatanna warkan bay soo saareen. marka ujeedka rasmiga ee taalibaan ma la sheegay waxuu yahay? taalibaanku waxa ay leeyihiin ujeeddadu waxay tahay koo warta in waddanka la difaaca, tan kale waxay tahay in ciidamadii aan ka dhabayno waxaan siinay ilaahay magangelyo iyo inaan badbaadin doono ciidamadii la shaqaynayay dowladda inaana tiina ka dhabayno. waxaan ognahay markii taalibaanku ay qabsadeen bartamihii bishii Agoosto ee sanadkii la soo dhaafay caasimadda Kaabul, ciidamadii dowladdii jirtay maraykanka uu taageerayay wixii waddanka ka baxay miina wixii kale shacabka ay ku dhex milmeen. intooda badan waa ay baqaan oo waxaa weeye dad aan isoo muujinaynin inay ciidamo ahaayeen. laakiin sida ay sheegtay qaramada midoobay bishii Janaayo ee lasoo dhaafay in ka badan 100 ka tirsan askartii hore oo lala xiriirinayo in ay ciidamadii dowladda maraykanka uu taageerayay ay waxyaabo badan u qaban jireen ayaa la dilay tan iyo markii waa Agoosto 15 bishii Agoosto ee sanadkii la soo dhaafay. hase yeeshee taalibaanku waxay leeyihiin annagu markasta waxaan ogolnahay inaan fulino ballanqaadkii ahaa inaan cafis u fidinayno askartii u shaqaynaysay dowladdii hore ee iyagu xukunka kala wareegeen. marka laakiin dad badan waxay isweydiinayaan sidee bay ugu dhabayn karaan iyadoo la ogyahay tiradaasi in la laayay kuwo kalena ay ku dhex milmeen shacabka. waxaa kaloo jira ciidamo badan oo wadamada dariska u tallaabay, iyagana lama sheegin inay soo noqon doonaan oo ay ciidamadan ku biiri doonaan iyo in kale. cabdifataax, aad baad umahadsantahay xasan cali geel ayuu kaasi faahfaahinta warkaasi inala socodsiinaya. markana wararka soomaalida aynu kusoo laabanay. la taliyaha arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu ku eedeeyey in uu u diiday warqad muhiim u ahayd ka qaybgalka tartanka doorashada golaha shacabka ee maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo. cabdi cali raage ayaa BBC-da u sheegay inaanay jirin sabab kale oo warqadaas lagu diido oo aan ka ahayn in ra'yi ahaan ay kala fog yihiin madaxweyne Axmed Maxamed Islaam. Jubbaland ilaa hadda wax wara kama soo saarin eedahaas loo soo jeediyey madaxweynahooda. maanta galinkii hore ayaysa ahayd markii lagu kala baxay kursigii uu doonayay cabdi cali raage inuu u tartamo halka 4 xildhibaan oo kalena halkaasi lagu doortay. haddaba khadka teleefonka ee Kismaayo aan goor hore kula xiriiray cabdi cali oo aan weydiiyey sida ay wax u dhaceen. walaalo horta arrintanu dee arrin soo jiitantay oo
halkii sane u dambeeyaba waxaad ogeydeen mar sii horreysay anigoo usoo kicintabay magaalada Kismaayo oo ka yimid Muqdisho in diyaaradii waday hawada laga celiyey kabacdina markii ugu dambeysay uun cadaadis la saaray ninkan odayga ugu dambeystii waa aqbalay inaan Kismaayo imaado intaan imaanayay oo dhanna waxaa mar walba ay haystay cadaadis lagu hor istaagayo in aan ololeeyo aakhirkii waxay soo jeedantaba waxaa la soo dhejiyey kursigii aan doonayay inaan u tartamo anigoo taa ka duulaya ayaan shalayto waxaan usoo kicitamay magaalada Kismaayo si aan hawshaas usii dhammaystiro oo naga qayb qaato doorashadiina shuruudaha waxaa ugu horeeya inuu qofku la yimaado warqadda amniga tii markaan raadsadayna waa laga hor istaagay yaa kaa hor istaagay waxaa iga hor istaagay ilaamihii amniga oo warqadda u xilsaarnaa inay dadka tartamaya siiyaan baa iga hor istaagay ma laguu sheegay sababta lagu diiday warqaddaas walaalow horta hawshan waabad ogeydo waa tii diyaarad dhan oo rakaab siday oo shidaalka uu aad ugu yar yahay oo Kismaayo markay ku soo hoobatay la celiyay oo khatarta dadka naftooda intaas leeg la geliyay marka hade waxani wax markii horeba la filayay buu ahaa wax kalena un ma ahane inaanan hadda ninka odayga ana isku tiim ahayno ra'yiga isagu sida wax u wada aan kaga soo horjeedo ninka odayga waa kee kaliya un bay daaran tahay wax kale oo hadda ninkan hogaamiyaha ka ah magaaladan Kismaayo Axmed Madoobe sidaas markay wax u dhaceen kadib adiga maxaad samaysay kabacdi isku day kalaan sameeyey oo qolada doorashada ayaan aaday si aan wixii aan la kulmay ugu sheego ugu wargeliyay in warqadii la ii diiday welina aan doonayay inaan kursiga u tartamo iyaguna waxay yidhaahdeen shuruudda ugu horreysa waxa waaye qof kasta oo doonaya inuu tartamo waxa weeye warqadda inuu la yimaado maadaamoodan warqaddaa haysanin awood uma lihin aan kugu ogolaano inaan shahaadada tartanka inaan ku siino waxaa jira guddiyo kale oo sida guddiga xalinta khilaafaadka kan heer federaal ma jirtaa marka cid kale oo aan ahayn guddiga doorashooyinka Jubbaland oo aad la xiriirtay oo aad cabashada gaarsiisay habraaca doorashada waxa weeye guddiga doorashooyinka qaybtooda heer dowlad goboleed ayaa hogaaminaya doorashada doorka ay ku leeyihiin doorashada waa inaad marka hore marto kabacdi unbaa guddiga khilaafaadku imaan karaan guddiga khilaafaadkana waan la xidhiiray oo xidhiidh baan la sameeyey mar kasta oo aan cabashadayda iyo hawshayda inaan u gudbiyo damcayna ilaa hadda waxay leeyihiin waan kugu soo celinaynaa taleefonka waan kula soo xidhiiraynaa wax yar baa qaab ahaan dukumenti ahaan naga dhiman cabdiyow kuraasta Soomaaliya qof iyo cod haatan laguma dooranayo oo beela ayaa soo xulanaya ergadooda kadibna cid ay rabaan dooranayaan aaway beeshaadii adiga beeshaydii ninkan odayga nabadoono aan waxba ka jirin oo fayg ah oo isagu uu qortay ayuu u yeedhay oo 5 ah maxaan ku dhahdaa nabadoonadii genuine-ka ahaa qaarkood intii hadda process-ku socday waaba xidhnaayeen oo hadda la soo daayay saakadan hadda hal saac ka hor baa la soo daayay qaar badanna magacyadii iyagu ay lahaayeen magacyo kale lagu bedelay hadda beeshayduna waxa weeye waxay wadaan dadaal ay isugu imaanayaan oo arrintaas kaga falcelinayaan laakiin cabdiyow ilaa haatan adiga unbaa cabanaya maynaan arag salaadiin caan oo beeshaada oo leh kuraastii baana laga boobayaa marka adigun bay kuu koobantaha hawsha soo maaha fiiri qaarkood waa hadleen nabadoonada caanka ah si beelnimo ay u hadleen waxaa laga yaabaa inaadan adinku dee aydan waraysan ama aydan war ka qaadin laakiin social media ayaa lagu waraystay laakiin sidaas si ka bedelan oo ka miisaan weyn bayba doonayaan inay hawsha u adres gareeyaan hawshanna aniga keliga ima qabsan rag kale oo miisaan leh oo siyaasadda Soomaaliya miisaan ku leh oo uu ka mid yahay Axmed Xaashi oo uu ka mid yahay wasiirka xafiiska prime ministerka marka ma aha hawshani hawl hadda aniga keliga igu dhacday guud ahaan beesha aan anigu ka soo jeedo ayay hawshan u qabsatay marka wax aniga xataa kali igu ah maba ahayn Cabdi Cali Raage 2016 waxaad ahayd gudoomiyihii guddiga doorashooyinka ee Jubbaland dad badan ayaa waagaas la leeyahay waxa laga hor istaagay inay tartamaan marka in la isriixo sheeko kugu cusub ma ahan soo maaha yaad refer garaynaysaa hal qof oo xilligaa laga hor istaagay inuu tartamo haddaad ii sheegto oo dhahda hebel waan ka jawaabi karaa laakiin ma jirtaan ku leeyahay arrintaas cid laga hor istaagay inay tartanto
oo kursiga beesheeda u tartanto 2016 ma dhicin. hadda maxaa kuu qorshaysan? hadda waxaan ku jirnaa la tashi aan la tashanayno keligay ma ahane dhammaan siyaasiyiinta arrintan lagu sameeyey ee beesha aan la tashanayno maxaanku odayaasha iyo aqoon-yahanada iyo ganacsatada beesha aanu la tashanayno. taladanaduna ma ku ekaan doona hadda beeshan yadane waxa weeye waa arrin dee caam noqotay oo si guud u saamaysay jubbaland oo dhan. marka dee reer jubbaland waxaan inay kusii jiri karaan iyo in kale baan taladeeda geli doonaa. waa tahay kaasi waxa uu ahaa cabdi cali raage oo khadka taleefonka ee magaalada kismaayo igu warramaya. qaar ka mid a dhegeystayaasheena facebook ayaa ra'yigooda waxay kaga soo dhibteen warbixintii biyarida iyo cunno yarida ka taagan dhanka iyo magaalada xudur. midii laba aan soo qabtay iraad aydiin xasan oo ka soo qoray bookh waxa uu leeyahay biyola'aanta iyo cunno yarida baahsan ee ka jirta degmada xudur waan ka xumahay xaaladaas khallafsan oo ay wajahayaan bulshada deegaankaas. waxaana la rabaa in ilaahay la baryo si ay xaaladaasi murugsan dadkaasi uga baxaan. xamse maxamed cabdi maxamed uu ka soo qoray magaalada burco waxa uu leeyahay xaaladda biyola'aanta iyo cunayarida baahsan ee laga soo sheegayo degmada xudur ee gobolka bokool waan ka xumahay. waxaase muhiima in allabarida la badiyo oo dadku ay ku dadaalaan waaye alle ayaa awoodda iska leh oo dadkaasi uu ku quudin karo oo biyo ugu keeni karin. waxaa qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c ee face. waa tahay markana baarlamaanka waddanka etoobiya ayaa ansixiyey guddi ka shaqayn doona wadahadallada qaran oo ka kooban 11 xubnood. howlaha guddigan loo igmaday ayaa waxaa ka mid ah inuu xal u raadiyo dhibaatooyinka kala duwan ee ka taagan dalkaasi. hase yeeshee lama filayo inuu wax ka qabto colaadda tigrey oo ah arrinta ugu weyn ee sanadkii lasoo dhaafay haraysay waddanka etoobiya ilaa haatanba. deegaanka soomaalida waxaa guddigaasi ku matalaya danjire maxamuud diriir oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladaha federaalka ee waddankaasi etoobiya. faadumo cali buukar ayuu khadka taleefonka ugu warramay. dalka etoobiya wuxuu ku jiraa maaragtay marxalad taariikhdiisa cusub, marxaladaha lagu tilmaami kara inay adag yihiin mid ka mid ah. markaasi khilaafaadyada jira oo aada u fara badan loo soo afjaro ama loo soo ururiyo waxa uu baarlamaanku ansixiyey commission ama guddi aan nidhaahno sare. guddidaas oo loo idmay inay ka howlgasho sidii khilaafaadkaas meel loogu tiirin lahaa. arrimaha ugu waaweyn ee haatan etoobiya ka taagan ee muddadii sanadka ahayd ee lasoo dhaafayna taagnayd waxaa ka mid ah colaadda tigraay. marka taa ma ka mid tahay ee waxyaabaha aad qabanaysaan? sidaan aaminsanahay colaaddaas oo qudha maaha waxa dalka ka jira. waxa weeye khilaafaadyo badan baa jira. colaaddaas waxay ka mid tahay khilaafaadyada dalka ka jira mid ka mid ah. hadda cidda khilaafkaas ku jirta oo aad tilmaantay baarlamaankan ansixiyey xeerkan aanu annagu ku shaqaynayno ayaa waxa uu ku tilmaamay inay yihiin koox argagixisa. marka ilaa inta ay arrintaasu jirto halkaas sharci ahaan ugama bannaana. adiga ma soomaali ayaad matalaysaa mase guddi qaran ayaad tahay? guddi qaran oo etoobiya marka la dhiso waxay ka dhigan tahay waxay ka kooban tahay qowmiyadaha dalkan ku wada nool. in ka badan 86 ayaa ku wada nool, laakiin intaasoo dhan guddi lagama wada dhigi karo. dadkaas matali kara, dhibaatadaasna waajihi kara oo wax ka qaban kara ayaa lasoo xulay. soomaali ahaan baana loo soo xulay, aniga shakhsi ahaantayda markaan ka hadlayo iyo guud ahaan dalkaba. dadka qaar golahan waa ay dhaliilsan yihiin. marka sidee ayaad idinka dhexdhexaad u noqonaysaan? dhexdhexaadnimadeedu kuma xidhna dhaliil iyo dhaliil la-aan cid kale ay soo jeediso. waddankan dimuqraadiyad baa ka jirta. dad ka soo horjeeda nidaamka siyaasadeed baa jira, dad mucaarada baa jira. annagu dad xisbi ka tirsan ma nihin. waxaanu nahay dad dhexeeya oo birimageyda ah. waajibkayaga waxaanu u gudanaynaa sida damiirkayagu una siiyo, diintayadu ay nafarayso iyo dadnimadayadu sida ay tahay. dhanka ururada mucaaradka ka waran ee ka jira deegaanka soomaalida, sidaad og tahay howlahan laydiin igmada waa ay qaadaceen. marka iyagu qorshaha ma idinkugu jirtaa inaad qancisaan? ururadaas ma wada odhan karo, ururo badan bay yihiin, laakiin ururada qaar ka mida oo qaadacay doorashadii sharciga ahayd ee waddanka ka dhacday baa jira. kolley nidaamka siyaasadeeda dalka ka jira waxaa la isku dayayaa in ciddii doorashada qaadacday qudheeda lagu soo dhoweeyo madal si loo ballaadhiyo madasha dimuqraadiyadeed ee lagu socdo ama loo sii jeedo. saas awgeed cidna ma takoorayna annagu.